Bismillah, Assalamualaikum warahmatullah. Anagoo ah Banaadir Coffee. Halkan waxaan ka salaamaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo macaamiisheena qiimaha badan. Waxaan jecelnahay inaan halkan ugu soo gudbino program aan ugu talagalnay waxqabadkeennii sanadkii tagay 2022. Ugu horeyn waxaan keenay adeeg cusub oo Javos Syrups ah, kaasoo 3 qaybood kala ahaa. Javos Syrup saddexdiisa waxay kala yihiin syrupaad ama kuwa loo yaqaan cabitaanada kafeega lagu daro, sauces kuwa lagu yaqaan smoothie-ga iyo laga sameeyo, iyo puree oo fruit basic ah oo ayagana laga sameeyo frappes-ka iyo smoothie-ga. Waxaan qabanay program lagu magacaabo barista workshop kaasoo soconayay 2 maalin kuna martigelinay 60 qofood. Waxaan ku bixinay 3 qofood oo give away ah. Waxaan qabanay program lagu magacaabo Somali Coffee Talk kaasoo lahaa 2 waji. Wajigiisa koowaad wuxuu soconayay 2 habeen. Waxaana ka soo qayb galay baristayaal kuwa u badnaa kuwaan anaga tababarnay magaalada ka shaqeeya maanta, iyo coffee owners-ka kuwaasoo ay ku dhex marayeen doodo wax ku ool ahaa oo lagu kala qaadanayo cilmi badan. Qof walba oo coffee ku cusub si uu u fahmo ama wax kaga barto coffee-ga waxa uu yahay. Wajigiisa labaad programka Somali Coffee Talk wuxuu ahaa workshop 3 maalin soconayay oo aan ku martigelinay 200 qofood, ku dhawaad 4 qofood oo waxbarasho lacag la'aana waan siinay. Waxaan kale oo aan ka qayb galnay program lagu magacaabo Muqdisho Coffee Festival oo ay soo qaban qaabiyeen Somali Expo Group. Anaga waxaan uga qayb galnay inaan ku tartanno coffee roasters oo magaalada jooga. Alxamdulillah waxaan ku guuleysanay best coffee roaster sanadkii 2022. Waxa kale oo aan ka qayb galnay maalinta beeraleyda Soomaaliyeed iyo maalinta cuntada adduunka oo ay soo qaban qaabiyeen wasaaradda beeraha iyo waraabka. Waxa kale oo aan soo saarnay 2 dufcadood oo baaristay shahaadi ah oo maanta magaalada ka howlgalaya oo gaaraya ilaa 60 qofood. Waxa kale oo aan ka qayb galnay program Somali Leadership Award oo aan ku guuleysanay Coffee Brand in Business Leadership Award. Waxa kale oo aan soo kordhinay Supervisor Skill Development oo aan ugu talagalnay dadka ku shaqeeya supervisorada inay xirfadooda ku kordhiyaan si shaqadooda ay waxtar la taaban karayo u yeelato.